kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta hawada nagala socotahay halkani waa Dooya Dheer Media waa maalinimo talaada ah taariikhduna waa 24 bisha 11aad 2020 qodobada aad wararkeena duhurnimo ku maqli doontaan waxa kamid ah wararkii u dambeeyay dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay fadhi ka yeelanayaan xaaladda adag ee ka aloosan dalka Itoobiya iyo dagaalada maalintii 12aad ka soconaya gobolka Tigray dowladda Itoobiya waxa ay amar ku bixisay in la soo xidho ugu yaraan 167 qof oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigray ee dagaalka adag lagula jiro warbixin ku saabsan magaalada Humayra oo kamid ah meelihii u horeeyay ee laga qabsaday TPLF oo laga taagay calankii dhergiga tirada dhimashada iyo dhaawaca matakal oo la shaaciyay waxaana la sheegay in uu jiro khasaare aad u tiro badan dowladda dalka Turkiga waxa ay diyaarinaysaa warshada lagu bacrimiyo hubka nuclearka kaasi oo ay sheegeen in 2023 ay si rasmi ah u shaqo bilaabayso qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee channelka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal dagaalka culus ee ka aloosan dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray waxa uu galay maalintii 12aad iyada oo labada dhinac ay si weyn isugu jabeen intii dagaalku uu soconayay 12kaasi maalmood dagaalku waxa uu galay maalintii 12aad fursadii labaad ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna uu siiyay ciidamada iyo madaxda Tigray waxa ka dhiman oo kaliya maalinimada bariya dunida kale warbaahinada iyo ururada caalamiga ah ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen dagaalka ka soconaya gobolka Tigray gaar ahaan midka laga cabsi qaba inuu ka dhaco magaalada Maqale ee gobolka Tigray siyaabo kala duwan ayaana looga falceliyay hadalkii ka soo yeedhay generaalka ee ahaa in magaalada Maqale loo adeegsan doono taangiyada iyo hubka halista taasi oo Itoobiya looga digay haddii ay ku dhacdo in xaaladeeda oo dhan ay khatar gali karto si kastaba ha ahaatee dagaalka xooggan ee ka soconaya gobolka Tigray ayaa waxa uu hadda maraya meel aad u qalaadha iyada oo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hub aad u culus ciidamada dawladda waxa ay xalayto sida aad warkeenii hore ku maqasheen ay soo bandhigeen in ay gacanta ku dhigeen magaalooyin ay kamid tahay magaalooyinka Shira Arwa iyo Aksum ciidamada dawladda ayaa u muuqda in ay guulo xoogaa ka gaadheen qaybo badan oo kamid ah dagaaladii xooggan ay ka soconayay gobolka Tigray dhanka kale dowladda dalka Itoobiya waxa ay amar ku bixisay in la soo xidho 167 qof oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xisbiga TPLF xiriirlaha guud ee dowladda federaalka ee Itoobiya ayaa amar ku bixiyay in la soo xidho 167 qof oo la xiriirinayo dagaalka ka taagan gobolka Tigray bayaanka ka soo baxay xeer ilaaliyaha ayaa waxa lagu sheegay in TPLF ay wadaan dambiyo halis ah sida ku xusan sharciga la dagaalanka dambiyada dagaalka ee u degsan dunida waxa uu sheegay in weerarka lagu qaaday ciidamada xoogga dalka uu ahaa tallaabo dambi ah oo la doonayay in lagu weeqo awoodda difaaca ee dowladda dalka Itoobiya xeer ilaaliyaha federaalka Itoobiya oo lagu magacaabo Jedian Tiahu ayaa waxa uu tilmaamay gantaaladii lagu garaacay gobolka Axmaarada inay ahaayeen falal argagixis kuwaasi oo aan sidaasi looga hadhaynin waxaa maalinimada arbacada ee berita ku eeg 3 maalmood ee loo qabtay inay isku soo dhibaan xogaga TPLF iyo madaxdooda hogaamiyaha TPLF waxa kale oo uu sheegay shacabkiisu in ay diyaar u yihiin inay u dhintaan difaaca xuquuqda ay u leeyihiin in deegaanadooda iyagu ay maamulaan Abiy Ahmed xogaga TPLF waxa uu ugu baaqay in ay si nabad ah isu soo dhibaan shacabka magaalada Maqale waxa kale oo uu ugu baaqay inay taageeraan xogaga dowladda ee kor hoganaya ama kor fadhiya magaalada Maqale waxa uu sheegay in kooxda TPLF meel aan looga hadhaynin ee ay dhinac isaga soocaan si kastaba dagaalada xooggan ee ka soconaya gobolka Tigray ayaa waxa la saadaalinayaa in ay noqon doonaan kuwa aad u daba dheeraada iyada oo xataa haddii magaalooyinka laga qabsado kooxda TPLF aysan suurtagal ahayn in dhulka miyiga tuulooyinka iyo degmooyinka laga qabsan karo waxaana la sheegaa gobolka Tigray inuu yahay mid buuraley ah isla markaasina TPLF ay taqaano si loogu dhoomalaysto ama loogu jabadeeyo waxaana suurtagal ah in jabhad awood badan ay ka dilaado gobolka Tigray
dhaga kala tigreega wadamo aad u badan oo caalamka ah ayaa garab taagan kuwaasi oo hanjabaada isdaba jooga u soo diraya dowladda uu hogaaminayo abiy axmed diinta kiristaanka ama ortodhogoska ayaa si weyn looga caabudaa gobolka tigreey waana meelaha wadaadada diintu ay ka dambeeyaan magaalada aksum ee ku taala gobolka tigreey waxaa taga oo soo kormeera ama diini ahaan u taga wadaado badan oo kasoo jeeda dunida kiristaanka waxa ayna si weyn uga soo horjeedaan in dhibaato la gaarsiiyo dhulkaasi oo ay u yaqaanaan inuu yahay dhulkii barakaysnaa sidaasi darteed baaqiya aad u badan ayaa iska soo daba dhacaya kuwaas oo abiy axmed loogaga digayo dagaalka uu kasii wado gobolka tigreey waxaana suurtagal noqon kara in faragelin dibadeed ay ku timaado dagaalka ka aloosan dalkaasi dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan yeelanaya ayaa waxaa la sheegay in ay si rasmi ah uga hadli doonaan xaaladda xooggan ama colaadeed ee ka aloosan dalka Itoobiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo marar kala duwan soo saaray warbixino ay uga hadlayaan dagaalada ka curtay dalka Itoobiya waqooyigiisa ayaa waxay maanta la filayaa in ay soo saaraan baaqiya iyo warar cusub iyada oo ay suurtagal tahay in tallaabooyin adag lagu soo rogo dowladda uu hogaaminayo abiy axmed ayaa isagu waxa uu iska diiday oo banaanka iska mariyay baaqiyo kala duwan oo ka imanaya beesha caalamka kuwaasi oo ku aadana in wada hadal lagu dhameeyo dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya ayaa lagu yaqaanaa in dagaal lagu kala adkaado oo weligeed wax wada hadal aan heshiis looga gaadhin xisbiga TPLF ee hadda lala dagaalamayo Itoobiya waxa ay soo maamulayaan in ka badan 27 sano waxa ayna ku qabsadeen dagaal kii ka horeeyay waxa uu ku qabsaday Afgambi kii kasii horeeyay waxa uu ku qabsaday dagaal abiy axmed sababta uu dagaalka ugu jiro maba laga yaqaan Itoobiya sharci iyo isla xisaabtan intay doorasho ka dhacdo dalkaas xilka lagula kala wareego sidaas darteed waa taariikh ay leedahay Itoobiya in dagaal ay wax ku qabsato ayay sheegeen dadka faallaya arrimaha Itoobiya ee sida weyn aqoonta ugu leh dalkaasi dhanka kale daawadayaal waa warbixin muhiim ah sida kalena la yaab leh taasi oo muujinaysa magaalada Humayra oo kamid ah meelihii laga qabsaday TPLF isla markaasina ay gacanta ku hayaan dadka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada lagana taagay calankii dhargiga ee u badnaa jaalaha arrintaasi oo dad badani ay walaac ka muujiyaan fiira gaara waxaanu doonaynaa in aad la socotaan warbixintani waxaanu ka soo xiganaynaa wakaalada wararka ee laga leeyahay dalka Faransiiska ee lagu magacaabo AFP oo iyadu ka soo waramaysa galbeedka gobolka Tigray saraakiisha dowladda ayaa waxa ay raadinayaan in ay kala dambeyntii ku soo celiyaan magaalada Humayra istiraatiijiyadu waxa ay u muuqataa mid la doonayo in lagu tirtiro TPLF qayb ahaan iyada oo la keenayo maamulayaal ka socda gobolka Axmaarada tallaabadaasi oo la qabo in ay halis weyn ku noqon karto in ay sii horeyso xiisada cakiran ee ka dhaxaloosan qoomiyadaha Tigreega iyo Axmaarada inta badan galbeedka gobolka Tigreega askarta dowladda dhexe ee federaalka si dhif ah taas bedelkeedana ammaanka waxa sugaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ee loo yaqaano Liyu Police sidoo kale shaqaalaha dowladda ayaa waxa ay ka yimaadeen gobolka Axmaarada si ay ula wareegaan maamulka gobolkaas laga xoreeyay kooxda TPLF ee dhaca waqooyiga gobolkaasi Tigray joogitaanka saraakiisha iyo askarta Axmaarada waxa ay sii horin kartaa cabsida laga qabay in ay qabsadaan dhulka Tigreega taasi oo daba socota xurguf muran 10 sano jirsaday oo ku saabsan dhul hor leh horeyna uu murankaasi u dhaliyay iska hor imaadyo rabshada wata oo labada qowmiyadood soo dhexmari jiray in badan oo la ogyahay Abrehu Fantahum oo ah oday ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada isla markaasina beeraley ah kuna nool galbeedka gobolka Tigray ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in dhulka lagu soo celiyo gacanta qoomiyadda Axmaarada inta aynu xusuusana dhulkani waxa iska lahaa Axmaarada ilaa 1991 markii ay qabsadeen TPLF ayuu yiri Abrehu durba Axmaaradu waxa ay raadad ka muuqda ee TPLF ka tirtirayaan gobolada waqooyi ee Tigreega waxa ayna Axmaaradu saarayaan meelaha la qabsaday calanka isugu jira cagaarka jaalaha iyo casaanka ee dhargigii hore u lahaan jiray waana sababaha walwalka ugu badan looga qabo in dagaalku uu aakhirka isku bedelo dagaal qowmiyadeed oo lagu reermo hogaamiyaha kooxda TPLF Debretsion Gebremichael oo la hadlayay wakaalada wararka Faransiiska
AFP ayaa waxa uu wacad ku maray in dagaalka aysan joojin doonin ilaa inta laga sifaynayo waxa uu ku tilmaamay kuwa doonaya in ay wiiqaan Tigreega. tani waa mid ka mid ah qorshahooda xun ee lagu wiiqayo Tigreega, waana sii wadayna dagaalka ilaa iyo inta laga sifaynayo meelaha oo dhan, ayuu yidhi Debretsion Gebremichael oo ah madaxweynaha gobolka Tigray ee uu dagaalka xoogani ku soconayo. Axmaarada oo inta badan waqooyiga iyadu gacanta ku haysa isla markaasina ay ku yar yihiin meelaha la qabtay ciidamada dowladda dhexe ayaa waxa ay magaalooyinka surayaan calankii dhargiga. ma arkaysid magaalo uu suran yahay calanka dalka Ethiopia, waana sababaha halista iyo khatarta badan looga cabsi qabo inay ka curtaan dalka Ethiopia. dhanka kale tirada dhimashada iyo dhaawaca ee Matakal ayaa la shaaciyay. maamulka degmada Gunga ee deegaanka Axmaarada oo xadlale Bishaanguul ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay tirada dhimashada iyo dhaawaca shaqaaqadii gobolka Matakal. waxa ay sheegeen in muddo 11 cisho gobolkaasi lagu laayay dad ka badan 106 qof, halka lagu dhaawacay 19 qof. waxa ayna soo bandhigeen goobaha ay dadkani ka soo jeedaan. gobolkani oo ka tirsan Bishaanguul Gumuz ayaa waxa dega qowmiyadda Axmaarada, kumanaan qof ayaana shaqaaqada gobolkani oo soo noqnoqotay ku barakacaya. dhanka kale dowladda dalka Turkiga waxa ay diyaarinaysaa warshadii ugu horeysay oo lagu bacriminayo hubka halista ee nukleerka. Turkiga ayaa waxa uu wadaa dhismaha warshadii ugu horeysay ee tamarta nukleerka, taasi oo lagu wado in ay howlgasho sanadka 2023 oo ku beegan sanad guurada boqolaad ee jamhuuriyadda Turkiga. waa himilo aad iyo aad noogu weyn, waana gaari doonaa hadafkeena, ayuu yidhi Bastam oo ah agaasimo ku-xigeenka koowaad ee shirkadda dhismaha. waxa uuna intaasi si raaciyay, waanu ognahay in muhiimadda uu sanadka 2023 u leeyahay Turkiga, waxaana dadaal xoogan ugu jira inaynu dhammaystirno qaybta koowaad ee waqtigaas. ku dhowaad 700 oo shaqaale ah ayaa waxa ay ku howlan yihiin dhismaha warshadda tamarta nukleerka. waxa ayna Ankara u tafaxaydatay in ay dhan kasta iskaga filnaansho ka gaadho, ayuu sheegay. aan ku bilownay daawadayaal dagaalka culus ee ka aloosan dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray, waxa uu galay maalintii 21aad iyada oo labada dhinac ay si weyn isugu jabeen intii dagaalku uu soconayay 21kaasi maalmood. dagaalku waxa uu galay maalintii 21aad, fursadii labaad ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna uu siiyay ciidamada iyo madaxda Tigray waxa ka dhiman oo kaliya maalinimada berri. dunida kale warbaahinada iyo ururada caalamiga ah ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen dagaalka ka soconaya gobolka Tigray, gaar ahaan midka laga cabsi qaba inuu ka dhaco magaalada Maqale ee gobolka Tigray. siyaabo kala duwan ayaana looga falceliyay hadalkii ka soo yeedhay generaalka ee ahaa in magaalada Maqale loo adeegsan doono taangiyada iyo hubka halista, taasi oo Ethiopia looga digay haddii ay ku dhacdo in xaaladeeda oo dhan ay khatar geli karto. si kastaba ha ahaatee, dagaalka xooggan ee ka soconaya gobolka Tigray ayaa waxa uu hadda maraya meel aad u khalaadha, iyada oo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hub aad u culus. ciidamada dowladda waxa ay xalayto sida aad warkeenii hore ku maqasheen ay soo bandhigeen in ay gacanta ku dhigeen magaalooyin ay ka mid tahay magaalooyinka Shira, Arwa iyo Aksum. ciidamada dowladda ayaa u muuqda in ay guulo xoogaa ka gaadheen qaybo badan oo ka mid ah dagaaladii xoogana ay ka soconayay gobolka Tigray. dhanka kale dowladda dalka Ethiopia waxa ay amar ku bixisay in la soo xidho 167 qof oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xisbiga TPLF. xiriirlaaliyaha guud ee dowladda federaalka ee Ethiopia ayaa amar ku bixiyay in la soo xidho 167 qof oo lala xiriirinayo dagaalka ka taagan gobolka Tigray. bayaanka ka soo baxay xeer ilaaliyaha ayaa waxaa lagu sheegay in TPLF ay wadaan dambiyo halis ah sida ku xusan sharciga la dagaalanka dambiyada dagaalka ee u degsan dunida. waxa uu sheegay in weerarka lagu qaaday ciidamada xoogga dalka uu ahaa tallaabo dembi ah oo la doonayay in lagu weeqo awoodda difaaca ee dowladda dalka Ethiopia. xeer ilaaliyaha federaalka Ethiopia oo lagu magacaabo Jedian Tiahu ayaa waxa uu tilmaamay gantaaladii lagu garaacay gobolka Axmaarada inay ahaayeen falal argagixisa kuwaasi oo aan sidaasi looga hadhaynin.
waxaa maalinimada arbacada ee berita ku eeg saddexdii maalmood ee loo qabtay inay isku soo dhiibaan xogaga TPLF iyo madaxdooda hogaamiyaha TPLF waxaa kale oo uu sheegay shacabkiisu in ay diyaar u yihiin inay u dhintaan difaaca xuquuqda ay u leeyihiin in deegaanadooda iyagu ay maamulaan abiy axmed xogaga TPLF waxa uu ugu baaqay in ay si nabada isu soo dhiibaan shacabka magaalada maqala waxaa kale oo uu ugu baaqay inay taageeraan xogaga dowladda ee kor hoganaya ama kor fadhiya magaalada maqala waxa uuna sheegay inay kooxda TPLF meel aan looga hadhaynin ee ay dhinac isaga soocaan si kastaba haatee dagaalada xooggan ee ka soconaya gobolka Tigray ayaa waxaa la saadaalinayaa in ay noqon doonaan kuwa aad u daba dheeraada iyada oo xataa haddii magaalooyinka laga qabsado kooxda TPLF aysan suurtagal ahayn in dhulka miyiga tuulooyinka iyo degmooyinka laga qabsan karo waxaana la sheegaa gobolka Tigray inuu yahay mid buuraley ah isla markaasina TPLF ay taqaano si loogu dhoomalaysto ama loogu jabhadeeyo waxaana suurtagal ah in jabhad awood badan ay ka dilaado gobolka Tigray dhaga kala Tigreega wadamo aad u badan oo caalamka ayaa garab taagan kuwaasi oo hanjabaada isdaba jooga u soo diraya dowladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed diinta Kiristaanka ama Orthodoxka ayaa si weyn looga caabudaa gobolka Tigray waana meelaha wadaadada diintu ay ka dambeeyaan magaalada Aksum ee ku taala gobolka Tigray waxaa taga oo soo kormeera ama diini ahaan u taga wadaado badan oo ka soo jeeda diinida Kiristaanka waxa ayna si weyn uga soo horjeedaan in dhibaato la gaarsiiyo dhulkaasi oo ay u yaqaanaan inuu yahay dhulkii barakaysnaa sidaas darteed baaqyo aad u badan ayaa iska soo daba dhacaya kuwaas oo Abiy Ahmed loogaga digayo dagaalka uu ka sii wado gobolka Tigray waxaana suurtagal noqon kara in faragelin dibadeed ay ku timaado dagaalka ka aloosan dalkaasi dhanka kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan yeelanaya ayaa waxaa la sheegay in ay si rasmi ah uga hadli doonaan xaaladda xooggan ama colaadeed ee ka aloosan dalka Itoobiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo marar kala duwan soo saaray warbixino ay uga hadlayaan dagaalada ka curtay dalka Itoobiya waqooyigiisa ayaa waxay maanta la filayaa in ay soo saaraan baaqyo iyo warar cusub iyada oo ay suurtagal tahay in tallaabooyin adag lagu soo rogo dowladda uu hogaaminayo Abiy Ahmed ayaa isagu waxa uu iska diiday oo banaanka iska mariyay baaqyo kala duwan oo ka imanaya beesha caalamka kuwaasi oo ku aadana in wada hadal lagu dhameeyo dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya ayaa lagu yaqaanaa in dagaal lagu kala adkaado oo weligeed wax wada hadal aan heshiis looga gaadhin xisbiga TPLF ee hadda lala dagaalamayo Itoobiya waxa ay soo maamulayaan in ka badan 27 sano waxa ayna ku qabsadeen dagaal kii ka horeeyay waxa uu ku qabsaday Afgambi kii ka sii horeeyay waxa uu ku qabsaday dagaal Abiy Ahmed sababta uu dagaalka ugu jiro maba laga yaqaan Itoobiya sharci iyo isla xisaabtan intay doorasho ka dhacdo dalkaas xilka lagula kala wareego sidaas darteed waa taariikh ay leedahay Itoobiya in dagaal ay wax ku qabsato ayay sheegeen dadka faallaya arrimaha Itoobiya ee sida weyn aqoonta ugu leh dalkaasi dhanka kale daawadayaal waa warbixin muhiim ah sida kalena la yaab leh taasi oo muujinaysa magaalada